subax kastay qorraxdu soo baxdiyo galabtii marka gabalku uu madoobaado waxaa ka marxaantiya malaayiinta adduunyadan ku nool. waxaan doonayaa fiidiyogan inaan kugu la wadaago qofna ha ka dhigin noloshaada farxadeeda. farxadaadu yeysan noqonin mid ku tiirsan qof bini aadam oo adiga kula mid ah. maxaa yeelay caadooyinka ugu cabsida badan ee bini aadamku ay leeyihiin waa in mar walba uu isbedel ku socdo noloshooda. waxaa isbedelaya go'aamadooda oo waxaa isbedelaya guud ahaan nolosha siday u arkaan. qofka bini aadamka ana qalbigiisu wuu isrogrogayaa oo wuu isbedelayaa sida habeenka iyo maalintuba ay isu daba marayaan ayuu mar walba isu bedbedelayaa. ogow in aad ka mid noqon kartid qofka bini aadamka ah ee noloshiisa ku jirtid isbedelka uu samaynayaba. haddaba haddii taasu ay dhacdo maxaa adigu aad ka dhaxli kartaa? waxaa dhici karta inuu qalbigaagu jabo, waxaana dhici karta inaad su'aalo fara badan iska weydiisid. waxayna dib ugu noqonaysaa maxaad markii hore qof bini aadama uga dhigtay remote controlka maamulo farxadaada. qalbi jabka ugu weyn ee qofka bini aadamka noloshiisa ku yimaadaana inta badan wuxuu ka yimaadaa marka qofku uu furayaasha farxadda qalbigiisa u dhiibo qof kale oo isaga la mid ah. sababta ugu weyn ee fiidiyogan kula wadaagaya waxay tahay in aadan adigu qalbi jab ku noqonin qof kale oo bini aadam ah. oo micnaheedan ka wado ha u faahfaahinin qofka noloshaada ku jira oo nolosha wadaagtaan in aad mar walba dareensiisid inaad iska ilaalinaysid qalbi jab xaggiisa kaaga iman kara. maxaa yeelay taasaaba waxay sabab u noqon kartaa qalbi jabkaad ka cararaysid. maxaa yeelay qofkan waxaad ka baqaysaa inuu kaa tago, waxaad ka baqaysaa inuu nolol kale kaa raadsado. dabcan sax, haddii taasu ay jirto oo laakiin mar walba aad dareensiinaysid maalin uunbaad i xumayn doontaa heblaayoy, maalin uunbaad i xumayn doontaa hebelow, ee ogow inaan iska kaa ilaalinayo. waxaa dhici karta wax uusan markii horeba qofa kani si dhab ahaana uguba soo jeedin, weligiina ka fakerin, ee negatiifa inaad markaa ku noqotid noloshiisa oo aad soo jeedisid markaa ay sabab kuugu noqoto adigu inaad qalbi jabtid. haddaba noqo qof isu dheelitiri kara hadalkiisa marka uu la hadlayo qofka uu jecel yahay. waxaad noqotaa qof kala shaandhayn kara hadallada munaasibka u ah qofka inaad kula hadashid iyo hadallada keeni kara inaad adigu naf ahaantaada gacantaada aad isku dhaawacdid.